kusoo dhawaada Kacab Media haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe sar like share comment soo dhawaada asxaabta madhabba in fanaaniinta Maxamed Saciid BK iyo fanaanka Cabdi Hani ay dib ugu soo laaban rabaan saaxada fanka warbixintan ayaan ku faaqidi doonaa Maxamed Saciid BK oo hore u sheegay in alla dartii fanku iskaga baxay ayaa haddana waxaa soo ifbaxday in BK iyo saaxiibkiis Cabdi Hani ay wali saameyn xoogan ay ku leeyihiin fanka Cabdi Hani iyo Maxamed Saciid BK ayaa kala hor sheegay in gabi ahaanba saaxada fanka ay ka baxeen laakiin wax waliba waxay isbedeleen kadib markii heeso cusub ay soo qaaday fanaanada Ugbaad Aragsan laba kamid ah heesahaas laxanka waxaa saaray labadan shakhsi oo hore u sheegtay in gabi ahaanba fanka ay ka baxeen heesta ugu horeysa ay qaaday fanaanada Ugbaad Aragsan oo ah hees cusub waxaa lagu magacaabaa albaab khayr leh waxaa laxanka saaray Cabdi Hani Xaashi oo hore u sheegay in fanka uu ka baxay dad badan ayaa isweydiiyay sidee ruux fanka hore ugu baxay haddana uu laxan u saaraya heeso Maxamed BK ayaa sidoo kale laxanka saaray hees ay ku looqayso isla Ugbaad Aragsan oo ah hees cusub taas oo lagu magacaabo intaad sacab tumi lahayd noqo midkii loo tumi lahaa heestaas oo ah hees cusub oo dhawaan ay qaaday fanaanadaasi haddaba aaway go'aankii labadan shakhsi ee ku aadanaa in gabi ahaanba fanka ay ka baxeen madaha gadaashiis ayay ka soo hadlayaan tani ayaa lagu tilmaami karaa in ay dib ay ugu soo laabteen fanka maadaama ay sameynayaan laxamo